كي هدوسن أهين هدان هرد في عن ساحنا يا هو هدان هرد في عن ساحنا يا هرد في عن هدان ساحنا يا هاي كنا ستيدا لو قلت لك على بقولكان هاي معان ما فاهم قال الله كسي هاي سريرتان وجديد سريرتان وجدها هاي سريرتان ما دو أذكى وحن فيرها كان هاي فيرها يجي جلساي ما دو هاي قرقان وقرقاجا وجد قرق قرحان جوي دقن سرير معان جودر معان ودول كيالا سيدا رتيد قرقان كيالو أديق الله أديقا كوكاني مادام حاسكيك أسفهم ويسين قروح ليدي هاي قصو قادن هويو هاي قصو قادن وهذا الصور اللي حتى ولي بدبسنيسا هويو هاي قصو قادن حاسكيك مركان مقل هويو ميل باي حنونيس تاسو حاس معها ويكائن كان بلبسته هويو وانا كل وريكتي noloshaadii dhan bay la wareegtay hooyo adigu isma ogid anaa ku og hooyo qof wanaagsan anaa ku og hooyo way kula wareegtay caadi bay kula wareegtay hadda hooyo iyada gurigaan aad dejiyay adigana gurigaan adaa iska leh sariirtan adigaa seexanaysa cidna qof kale seexanaya ma jiro marba taas hadaa iga soo sidoo kale joodarigaas adigaa ku seexanaya hooyo niyo waxaanada horta anigaa ku yeeray sax wax kale ma kugu wicin halaarna kugu wacay sax iyo sida la socotid waxa sala deganaa hooyo sidoo kale xaaskeyga sax wax badan xagga secondary ada u raraawda degantaa wax badan way wada deganaayeen at least ugu dambeyntii khilaaf isku dhac badan buuq badan waa iskeeni waayeen sheekadu waxay noqotay inaan markaa kala raro waa ii suura gashay maamadana meelan dejiyay sidoo kalena xaaskeyga meelan dejiyay waa oga maalin hore mar jimcada hore ay dheysay ma xaafada si wanaagsan gabadha oo casi u cabanayso dheysaniyo maamadan ka yaabana marka xaaskana waa iska xaamilo dibka ugu weyn jira wuxuu yahay maamadaniyow anima u shaqeeyo guriga inaan u gala ay noqonaysaa mise waxa igula tali lahayd inaan qof shaqaale u raadiyo problemka ugu weyn ay haysto ee nervous igu riday waa kaas okay macnaha xaafadii waa ka soo rartay xagga inta soo dejisay gurigaana soo dejiyay haddaan dhinac taagana sax marka problemkaas ay haysto waxaan ku xalli karaa niyo waxa sameeysaa horta sodoo waa iska dhib badan tahay si fiican haddii sodoo tahay waxyaalo badan iska tirsanaysaa oo sida in gabadha ay si kale u aragto aad qabtidoo kale sodooyaalku iska dhib badan yihiin si fiican niyo horta waa wax fiican inaad soo kala rarto because haddii wixii la isku dulhayo adigina problem iyo stress ku keenaysaa si fiican gabadhina dabcan de gabar xaamila haday tahay xaalada qaar xataa uma adkaysan karto waa dumar ni horta waa kugu bogaadinaa marka hore inaad ka soo rartay marka labaad waxaa samaysaa horta maamada guriga aad dejisid waxaa ka dhigtaa guri xoogaa iska yara nuurayo iyo xoogaa dareemino guriga qurux badnaadii guri fiican oo wanaagsanaa ba dejiyay ba marka waxaa samaysaa gabar shaqaala u qabo maamada oo u shaqeyso oo yani cuntada oo kale cunto u karkariso oo si kasta xataa adiga u caawisid ma caawin kartid because shaqaa ku maqan tahay mogtaa qof dharka ka bedela raba dumar oo fahmaya marka habeenka oo kale saacadaas dumarka maamooyinka lugaha xanuunaya dabcan lugaha oo kale marka qof shaqaala u qabo waqti fiican yani ha u shaqeyso habeenkii ha iskala seexato dabcan guri fiican haday degan tahay waliba gabar qaraabada kala ugu fiicnayd inaa u shaqeyso I know inaan shaqaale inaan helo waan rajeynaa oo bishii lacag aan siiyo hooy sidee tahay xaaladaada hooy waa fiicana maasha allah ayaanta shaqo la-aan ay hayso wiilashii u shaqeynayay safar iga aadeen hadda aan keliya iska soo haro hooyo yaa hooyo hadda wiilaa sugayay oo igu dhahay shaqaaro qof u baahan ii shaqeyso marka waxaa dhahay inaa is heshiino hadda uu isoo socdaaba arrimaha shaqada rabaa inaan kala hadlo ayaantan gurigaaba iska jooga shaqo la-aan dartiisa haye hooy macaanto haye asagaa sugayaabo asagaaba isoo wacoobo soo galabo okay rayahay sidaan filay fariinteedana way ka soo horeysay sax waxaan kugu imaaday oo maanta gurigaaga inaan imaado waqti aan soo geliyo kaliya igu kalifo wax kale maahan hal igugu tilmaamay inaad tahay qof aamina oo wanaagsan oo daacad ah oo shaqo si fiican u gudan kara
waxaa jirta hooyaday runtii iyo xoogaay islaan xaaskayga iskeeni waaye culeysyadii oo batay dartood waan kala raray maamada meel gaaraan dejiyey sidaa daraaddeed marka qof maamadii caawisaan waaye in badan dad badan waa laga tilmaamay gabdho badan laakiinse dad xoogaa u qalmin maamo ay xanaaneyn karaan ama hayn karaan ma waaye sax marka waxaa jeclaystay oo maantaan kugu imaaday in adiga shaqadaas qofka keliya ay qaban karta aad tahay sidaa daraaddeedna gurigaas aad ka shaqaysid oo waxaan rabaa hooyaday aada xanaaneysid oo aad la joogtid waqti la qaadatid isla markaana korka masaajid aada u marisid cuntadeeda aad u diyaarisid sariirteeda aada si fiican ugu gogashid adi ma kuu tilmaami karo waa qof waa iska dareemi kartaa u baahan mar walba caawin waa fahansanahay sidaa daraaddeed bishiina lacag aan isleeyahay aaday kugu qalmaysaa weliba adiga iyo qoyskaaga kale bay ka farxin kartaa diyaar ayga tahay qofkana ujeedid oo gurigan aadka u quruxinaayo bidhaanteedana ay ku qurux badan tahay waa xaaskayga Fardoosa la yiraahdaa barasho wanaagsan Fardooso gabadhan soo dhawow haniyaal lahaa iyadana waa gabar runtii aan ugu talagalay in ay familka u shaqeyso vant marka waa kaasahay barasho wanaagsan isbarta barasho wanaagsan abaayo insha Allah aad ugu faraxsanahay in la igu boolay ka baro ما شاء الله سدوا مع بدن أسمرتيني gurigan waa gurigaaga oo kale xaaskan waa gabar iska dhalinyaro ah oo aada u kaftameysa mararka qaar oo xitaa xaafadda xagga kusoo cilootid haddaad timaadid in badan waa qof waqti kula qaadanaysa kuu sheekeynaysa kula kaftameysa haddii cunuga caloosheeda ku jira gabar u noqdana adiga kugu samay doonaa insha allah ما شاء الله اوكي ايوه oo soo dhawaaw maanta dhan adaa ku sugaayay shaqadii xitaa banaanka daraadaada aa ugu joogay intaan gudaha gelin horta akhbaar yaraan kula wadaago qofka caawinayso hooyo هويدا yes أوكي hooyo gudaha ku jirtaa waa qof iska waayeel wax walba ku dhahday inaad u dulqaadatid aan rabaa inaad caawisid waan rabaa cidla inaysan dareemin waan rabaa sidoo kalena waxaan rabaa hooyo mar waliba ay u baahato korka inaa u masaajo u marisid ma fahantay صح qofka ugu dhow ee caawin karana maanta oo guriganan u keena waa adiga hooyaday waxay kasoo cabatay runtii aadna usoo karaahsatay ani xaaskayga صح marka sidaa daraaddeed waxaan rabaa hooyo inay mar walba faraxsanaato dhaqaale lacagta bishaa qaada lahayd waa diyaar 28 lacagtaada waa qaadanaysaa gurigan ka shaqeey 3 xilli iyo markas waxaa rabto waa cuni kartaa noloshan quruxda badan kusoo biir hooyan inay caawisid wax kaa rabaan waa mar kale oo kula dardaarmaa inay hooyo kaa soo cabatana ma jecli iyana taas dhicin yaa nuunuule hooyo waa annaga waa hooyo soo guda babaayo hooyana sariirtaan ay ku jiiftaa waa ku bari doonaa insha allah maandhe ma gabadhaa sheegaysayba hooyo macaane waaba see naxay tahay hooy waa fiicnaha alxamdulilah wallaahi soo fariiso maandhe soo fariiso soo fariiso soo fariiso hooyo